qof kasta oo Allah subhanahu wa ta'ala abuuray waxa la siiyay awood uu naftiisa ugu tiirsanaan karo taasoo uu ku fushan karo howlihiisa oo dhan kuna dabooli karo baahiyaashiisa mana jirto cid awooddaasi gaar loo siiyay balse waxa la isku dhaafaa hadba intii awooddaasi la adeegsado marar badan baad arkaysaa awoodda inta la eg ee aynu haysano oo dad badani ka baahan yihiin qofka bani aadamka waxa u sharaf badan una karaamo badan in uusan cid kala baryin ee uu isagu naftiisa ku tiirsanaado haddii aad tahay qof aaminsan awooddiisa kuna kalsoon waxa ay gacantiisu goyso waxa maragma doonto ah in aad dadka dhexdooda ku yeelanayso sharaf iyo cizi waxay Soomaalidu ku mahmahdaa baryo badan iyo bukaan badanba waa la isku nacaa rasuulkeena Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu amaanay una duceeyay qofka muruqmaalka ah ee la soo baxa nolol maalmeedkiisa weliga ku tiirsano naftaada aamin awoodaha Rabbi ku siiyay noqo qof ku kalsoon naftiisa ha is oranin ma samayn kartid ma qaban kartid ma gaari kartid ma shaqaysan kartid fursado shaqooyin ma jiraan iyo wixii la mid ah waad shaqaysan kartaa qaban kartaa gaari kartaa himilooyinkaaga oo dhan kaliya waxa ka hortaagan inaad fahantid oo aad qiratid in aad tahay bani aadam Rabbigii abuuray sharaf iyo awood badan uu siiyay haddaba sideed ku noqon kartaa qof naftiisa dhisa aaminana awoodihiisa qodobadan soo socda waxa ay ka caawin doonaan in aad noqoto qof ku tiirsan naftiisa oo aaminsan waxa ay gacantiisu goyn karto marka koowaad ku fikir in aad tahay qof isku filan markasta waxa ugu mudan oo muhiim ah waxa qofku niyadiisa ku hayo kana dhaadhiciyo aamin in aad tahay qof dhameystiran oo leh awoodo badan ku xirnow naftaada oo la shaqeyso fahan waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay kuwa aad ku liidatana isku day inaad xoojiso ha ku dhihin naftaada erayada qalbiga dila sida waxba kuma fiicnid tamar ma lihid waad hooseysaa waad liidataa asaagaaga waa ay ka horeeyaan iyo wixii la mid ah aamin naftaada qofka koowaad ay tahay inaad ka hesho aaminaad iyo kalsooni waa naftaada mar waliba ku kalsoonow qofka aad tahay ma jiro qof kuu dhigma ama kula mid ah adduunkan lamana soo helayo qof meel kasta aad isaga mid tihiin oo beddelkaaga noqon kara waana sida Rabbigii na abuuray ugu talagalay bar naftaada sidii aad ku noqon lahayd qof isku filan waa sunnaha nolosha inaad la kulanto dhibaatooyin kala duwan inta aad nooshahay balse sida uu u wajahayo qof kasta oo inaga mid ah ayaa kala duwan haddii aad awal ahayd qof markasta dadka dhankooda u orda oo gargaar weydiista marka ay arrimaha kugu cuslaadaan isku day inaad wax ka bedasho waxaana wanaagsan in aad Allah talada u dhiibato dadaal badanna aad ku darto la saaxiib naftaada oo la sheekayso ku xirnow oo wehel ka dhigo waxaana la hubaa in ay kuu fududaanayso nolosha oo dhan wax badanna aad qabsan doonto nafta oo aad la saaxiibtaa waxay kugu abuuraysaa kalsooni fara badan oo aad ku qaabisho mawjadaha kala gedisan ee ku soo maraya baro xirfad aad ku soo saartid nolol maalmeedkaaga in aad xirfad barataa waxay kuu sahlaysaa inaad shaqaysato oo aad wax soo saar samayso umana baahnaan doontid inaad asaagaaga gacmaha u hoorsatid gunti dhagaysto waxa hubaal ah in naftaynu ay ahaan doonto meesha aynu dhigno iyo waxa aan ku qancino Allahna waxa uu nagu kaalmayn doonaa hadba waxa aynu ku fikireyno dadka kartida leh ayaa lagu gartaa calaamooyin gaar ah oo ay kaga duwan yihiin dadka aan kartida lahayn ayagoona mar waliba ku dadaalo in ay la yimaadaan waxyaabo badan oo ay dadka kale kaga duwan yihiin iyo in ay ka run sheegaan hadafkii ay lahaayeen dadka badigood waxa ay sameeyaan ama ay raadiyaan sidii ay ku heli lahaayeen horumar wanaagsan waxaase dhacda in ay yar tahay dadka xaqiijiyo ama gaaro hadafkii ay lahaayeen haddaba maxay tahay habka ama dariiqa ugu sahlan aad ku gaari karto ama aad ku kasban karto karti kuna soo bandhigi karto awoodda uu Allah ku siiyay dariiqa ugu sahlan aad ku gaari karto waxa kamid ah marka hore noqo ruux ku kalsoon naftiisa kuna tiirsan awoodda uu Allah siiyay isku day inaad noqoto ruux wax akhrin badan akhrisku waxa uu kugu saacidayaa inaad dhisto kartidaada iyo awoodda kugu jirto ka faa'iideyso waqtigaaga kuna bixi waxa ugu wanaagsan ee aad ku horumarin karto naftaada dadka kartida leh ma ahan kuwa meelaha calaacal la taagan oo ka eed sheegta dadka kale iyo waxyaabaha Ilaahay u qoray balse waxa ay yihiin kuwa naftooda mas'uul ka noqda oo na dareensan in noloshu aysan ahayn mid 100% ah sidoo kale waqtigooda kuma dhumiyaan waxyaabaha aysan kontrooli karin isku day inaad hesho xuquuqdaada isla markaana aad ilaaliso xuquuqda dadka kale qofka kartida leh dadka kale uma ogolaado in ay maamulaan oo xaqiisa ku tuntaan mana isticmaalo erayada sida qofkaas ayaa waxaas igu qasbay iyo wixii la midka ah wuxuuna si xoogan u xukumaa dareenkiisa wuxuuna aaminsan yahay awoodda ku jirto isku day in aadan ka leexan culeysyada ku soo wajahaya balse muuji sabar iyo inaad Allah talada u dhiibato dadka kartida leh waa kuwa fahansan culeyska nolosha waxayna sameeyaan qiimeyn ku saabsan hawsha u taala waxayna ku dhaqaaqaan waxqabad ayaga oo na fahansan khasaarada iyo faa'iidada ka iman karta sidoo kale noqo ruux u muuqdo mustaqbal wanaagsan dadka qaar ayaa lagu yaqaanaa in ay ka hadlaan waayo iyo sidii xaaladdu ahaan jirtay
balse dadka kartida leh kuma mashquulaan wakhtigii hore maadaama wixii dhacay ay dhaceen oo aysan soo laabanaynin balse waxay xoogga saaraan mustaqbalka iyo sidii ay ugu guulaysan lahaayeen noloshooda. noqo ruux kuwaana qaato qaladaadkiisa. markii uu qalad kaa dhaco waxaad isku daydaa inaad wax ka faa'iidaysato sababaha keenay qaladka iyo sidii aad xal ku helin lahayd. waxaadna qaadataa mas-uuliyadda qaladka kaa dhacay. sidoo kale ha noqon ruux ay ka muuqato niyadjab markii uu fashil kugu yimaado. xigmad ayaa waxay leedahay fashilku waa bilowga guusha. markii aad fashil aragto halkaas ayay guushu ka bilaabanaysaa. ha noqonin ruux suga natiijo degdeg ah, maxaa yeelay inta badan qofka caaqilka ah ma fiiriyo waxyaabaha ugu horeeya balse wuxuu ku dadaalaa waxa ay ku dhammaan doonto hawsha uu ku jiro. guntii dhegaystow, haddii aynu doonayno inaan ka guul gaarno amba aynu noqonno ruux karti leh, waxaa lagama dhammaan ah in aynu xaqiijino qodobadan aan soo xusnay. wakhtigu waa mid ka mid ah hibooyinka eebbe inugu galadaystay. waa nicmo aan la soo koobi karin waxtarka ay u leedahay nolosheenna, taasoona layska weydiin doono maalinta qiyaamaha. inta badan dadku kuma baraarugsana qiimaha uu wakhtigu u leeyahay iyo inaan lagu soo iibsan karin hanti weliba aad leedahay. wakhtigu waa hanti haddii mar ay ku dhaaftana aan dib loo heli doonin. waxaa la yidhaahdaa wakhtigu waa nolosha, ayadoona laga cabirayo qiimihiisa aan wax lala jimeeyey aysan jirin. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa wakhtigu waa lacag, ayadoona laga cabirayo qiimaha uu leeyahay. mar kasta waxaa laga yaabaa in aad maqasho hebel horumar ayuu sameeyey ama dowlad hebel waxa ay samayso horumar, balse ma isweydiisay waxa horumarkaasi saldhigga u ah. haddaba ogow, qof kasta ama dowlad kasta ee horumar samaysay in ay horumarkaasi ku gaartay markii ay wakhtigeedii maaraysay. ogowna in wakhtigu uu yahay hantida kugu qaalisan ee aad haysato, oo ayadoo kalena qofna aysan ku sii karin. sidoo kale waxaad ogaataa in daqiiqad kasta oo kaaga dhuntay macno darro ay tahay qayb cumrigaaga ka mid ah oo kaa khasaartay. maalinta qiyaamana lagu su'aalin doono. maalintu wakhtiga waa habka aad u qorshaynayso iyo aad u qaabaynayso wakhtigaaga, adigoona qayb kasta ku aadinaya howl gaar ah si uu u siyaado waxtarkaada iyo waxqabadkaaga uguna guulaysato himilooyinkaada. haddaba sideed u maarayn kartaa wakhtigaaga? qof weliba oo fakar ama himilo fog leh waxaa qasab ku ah inuu maareeyo wakhtigiisa si uu u gaaro ujeeddadiisa mustaqbalka fog. isku day inaad wakhtigaada maarayso oo uu ku xisaabsanaado. daqiiqad weliba oo ku dhaaftana ay macno kugu fadhido si aad u horumariso naftaada iyo tan ummadaadaba. waxaad ogaataa in adduunyadan lagu keenay inaad allah caabuddo. sidaa darteed waxaa lagama dhammaan ah inaad wakhtigaaga ku bixiso wixii laguu abuuray ama lagu keenay koonkan. isku day inaad wakhtigaaga ka midho dhaliso kuna soo saarto wax ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. isku day inaad ku xisaabtanto daqiiqad kasta oo ka mida wakhtigaaga, maxaa yeele qofkii aan wakhtigiisa xisaabin waxa uu ku dambaynayaa inuu shallaayo. yeelo hadaf iyo yool. haddii aadan hadaf lahayn waxa ay macnaheedu tahay in wakhtigaaga uusan macno kugu fadhin. samayso qorshe ku aadan wakhtigaaga. u qorshee si joogto ah howlahaaga. isku day mar weliba inaad qorshayso howlahaaga iyo in aad joogtayso inaad la xisaabtanto naftaada. waxaad mar weliba mudnaanta siisaa arrimaha muhiimka. ha isku dhex yaacinin arrimahaaga oo dhan, balse waxaad u qabataa sida ay u kala habboon yihiin. iska jir tuugga wakhtiga xada. waxaa ka mid a saaxiibada, internetka, tv-ga iyo wixii la mid ah. gabagabadii dhegaystow, waxaad ogaataa in wakhtigu uu ka mid yahay cumrigaaga. haddii aad layacdana waxa uu ka layacmayaa cumrigii lagu siiyey. go'aan qaadashadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha noo horseeda in aynu gaarno wax badan oo ka mid ah guusha nolosheenna. waana sirta ka dambaysa in aynu xaqiijino in badan oo ka mid ah mustaqbalkeena. inta badan horumarka nolosheenna waxa uu ku tiirsan yahay ama qayb weyn ka qaato hadba inta uu la eg yahay go'aan qaadashadeenna. ruux walibana inta ay la eg tahay go'aan qaadashadiisa ayuu la ekaanayaa xaqiijinta mustaqbalka noloshiisa. dadku inta badan waxa ay jecel yihiin in ay guulaystaan, balse waxyaabaha ka hortaagan inay ku guulaystaan hadafka noloshooda inta badan waxaa keeno hadba sidii ay u qaataan go'aamada noloshooda. dadka qaar waxa u sababa in ay ku guuldaraystaan go'aamadooda waxa ay ku tiirsan yihiin ama ay la wadaagaan go'aamadooda dadka asxaabta la ah iyo dadka ku hareeraysan. kuwa kalena waxa ay ka baqayaan haddii ay go'aan qaataan in ay ku guuldaraystaan. dadka noocan oo kale ah sida badan ma xaqiijiyaan mana gaaraan guusha noloshooda, halka kuwa kalena ay yihiin kuwa ku dhiirada inay xaqiijiyaan ama ay fuliyaan go'aamadii ay marka hore niyeysnaayeen. waxaana sida badan dhacda in ay xaqiijiyaan ama ay gaaraan waxyaabaha ay rajaynayaan. allah subxaanahu watacaala adduunyadan waxa uu ku xiray asbaab, dadaalo iyo in lagu wajaho go'aamo adag. qof walibana waxa uu siiyaa ama uu gaarsiiyaa inta uu ka haminayo noloshan in uu gaaro. mana uusan kala qaadin allah ruuxa mu'minka iyo midka aan mu'minka ahaynba, balse nin weliba iyo dadaalkiis ayuu ku gaaraa.
marka aynu fiiron dadka maanta adduunyada ka gaaray ama ka xaqiijiyo meelo sarsare waxaan dhihi karnaa waxaa u horseeday ama sabab u noqday inay qaateen go'aamo adag iyo kalsooni xagga naftooda ah. waxa ayna noqdeen kuwo dadka kale ku sheekaystaan horumarka ay gaareen, niyaddana ay ku dhistaan mar weliba. haddaba maxay tahay waxyaabaha aad ku noqon karto ruux ku wanaagsan go'aan qaadashada? ka hor inta aadan go'aan qaadan waxaa wanaagsan inaad ku dadaasho sidii aad ku noqon lahayd ruux mar weliba aaminsan Allah kuna tiirsan xaggiisa. maxaa yeelay inaad ku guulaysato go'aamadaada waxaana looga dhammayn inaad Allah u kaashato. Allah waxa uu ku leeyahay qur-aankiisa markii aad wax go'aansato waxa aad talada u dhiibataa Allahna waxa uu jecel yahay kuwa mar weliba talada u dhiibta. marka xigta inaad samayso qorsho iyo daraasad aad ku ogaanaysid waxa aad rabto inaad gaarto adigoona u kaashanaya dadka u leh aqoonta. sidoo kale in aadan halmaamin in aad la timaado salaatul istikhaara, maxaa yeelay waa wadada ugu wanaagsan ee aad ku heli karto muraadka aad leedahay. in aadan samaynin degdeg oo aad wax weliba ka fiirsato ka hor inta aadan ku dhaqaaqin. sidoo kale go'aan qaadashadaada waxa ay u baahan tahay sabar fara badan, sidaa darteed waxaa wanaagsan in uu sabarkaagu bato iyo ka fikirka cawaaqibta dambe. haddii ay dhacdo in aad go'aan qaadato ayna ka soo baxdo natiijo aadan filanaynin ama aadan ku faraxsanayn, naftaada ha u muujinin shallaay iyo inaad ka qoomamayso, balse waxaad u qaadataa inuu sidan khayrka kugu jiro ayna ka khayr badan tahay waxa aad rajaynaysay. ka baro wax badan go'aamadaadii hore, kana qaado aqoon dheeraad ah si aadan mar kale ugu dhicin dhib hor leh. ugu dambayntii waxaad ogaataa noloshu in ay tahay khibrad iyo waayo aragnimo, guuldaradana ay tahay guusha bilowgeeda.